labaadi waa dadka inuu dulmiyo nuuciyadeedu aad bay u fara badanta waxaa ka mid ah dadka inuu ku dulmiyo inuu dilo inuu caayo inuu garaaco xoolahooda inuu qaato intaba cirdigooda inuu wax ka sheego oo dulaysto ihaanaysto intuba dulmiga ka mid dhacdadii dhacday maalinkii dhaweyto oo waxa weeyaan qof walbana uu maqlay siyaabaha u dhaceenna waxa weeyaan laga dheregsan yahay waxay ka mid tahay dulmiga nuuciyadiisa khatarta ah oo waaweyn bay ka mid tahay waa dil ka bacdi gubid loogu daray magaaladeennana ka dhacday dadka sameeyana ay yihiin dad muslimiina kuwa lagu sameeyana ay yihiin dad muslimiina bal ay yihiin dad walaalo ah oo isku luqad ah oo isku midab ah oo isku deegaan ah bal wada jaar ahaa oo is yaqaano daris ah in qof muslima oo bari ah dambi una lahayn loo qabto oo la dilo oo la gubo min bani fulan wa bani fulan isma geyno ismana guursano isku ma taqaana isku kuf manihin sidaa dad in loo dulaysto oo lagu sameeyaa anwaacda dulmiga nuuciyada xunxun oo khatarta bay ka mid tahay dadka waxaa sameeyo ficilkaa sameeyeyna waa dad ay ku dambayso kuna jirto waxa weeyaan jaahiliyadii nabiyullaahi moxamed markii la soo saaray oo ummadda oga digay oo qabyaaladda ahayd oo waxa weeyaan kibirkii jaahiliyada lagu yaqaanay ah wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إلهي وإذن ككحيي كبر كي يسلوين كي جاهلية يفان كي آبيالك يكفانيين مؤمن تقي وفاجر شقي أما قفك ومؤمن تقي نسب كي سادتك أكتو ذهبك هو سيهدي للرو وهدو مؤمن تقي يهي قيب قيمه وحويان إلهي سبحانه وتعالى أكتي سوزن إيا قيمة أيوكلي وفاجر شقي أما قفك وفاجر قبيل هبل اللي يرادا أما قبيل لان يراها كدشو هدو فاجر شقي يهين إلهي أكتس وكليته لبداس بعضتك وقيب صلاة وحو النبي يري صلى الله عليه وسلم ليدعن رجال فخرهم بأقوام هكتغين وهكتشوغين رق آبيال كفانية إنما هم فحم من فحم جهنم آبيالكاسoo noqday dhuxusha jahannamo noqday oo gubtay ha ka joogin aw la yakununa ahwana ala allah min aljiclan ama waxay noqonayaan ilaahay agtiisa kuwa kaliita kana hooseeya bahalka la yiraahdo xaarwalwaalka ama doorshaanka ilaahay agtiisa kuwa kaliita noqonay faan ay ku faanayaan aabayaal iyo magac ay ka soo jeedaan ha ka joogin oo iska ilaaliyo نبي صلى الله عليه وسلم وادي ذي قبيالدان نباب بإسي أو ذلك نأفيسي أو مضي نكلا قيبسي أو وحويان مانتي الحمضاس يدر حمضا نجمو قتن الجارسيسي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كني أفر بقول أو سنة كهر أيو نوجد جهل ما أنت ولد وضعنا هينا آتارتي ذي رادت كذي وواحد داريه نكم مغضه ووحى علمه إن قالوا أنا وجيني ووحى عن بني فلان وقيب صنّي ووحى ويان ذاتي درس كاسكود لهيان واسكود جبه هيان وحويان وجاهلية داس نبي محمد نوجد صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه أي النبي يقول له صلى الله عليه وسلم مؤمنك وولالك مؤمنك كله مسلمك ما ظلميه ولا يخذله مهوتيه ولا يحقره من ليده محا قفك الدنبي غفلا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم قفك وحا شر غفلا ولا الكيس مسلم كائنه حقر أو ليده أي شر غفلا هذو اللي يده وقدر فعل أو دل وقدره أو قبيد وقدره أو عذاب كلا وقصيدره كبصيدره وإن إلهي سبحانه وتعالى جريمة داس بعضي وحويان آديات إلهي درتي اللوجة بري النقطة oo waxa weeyaan waxa noocaasa iyo waxa la midka oo qabyaalada ah dadka sameynaya dadka dhan ma aha
dadkoo dhanna ma wada xuma afraad ayaa samaynaysa ashkhaas baa samaynaysa qabiil wada fiican ma jiro qabiil wada xunna ma jiro waxa weeyaan dadka waxaa samaynaya waa in laga wacyi geliyaa oo arrintaas waxa weeye aad iyo aad looga hor yimaadaa oo looga dhidhiya dadka dhibaatada ay ku dhacday ninkii dhibaatadaas ay ku dhacday oo ilmo fara badan ka tegay ilaa 12 meelahaas iyo 2 xaas iska xoogsata ahaa wax weyn aan haysanin waxaan leenahay ha loo gurmado oo ha la taageero oo ha loo kaalmeeyo ilaahay dartiis aad baa dadku runtii uga xumaadeen dad badan oo waxa weeyaan ka hadlay oo naxdinta arrintaas la ka hadlay baa badan khayr badan ayaana muuqda maadaama hal mar isku cod lagu yiri waxaas inay tahay wax khalad ah oo dambi jarima ay tahay waxaan loo dul qaadan karinna ay tahay oo laga bari noqday waa faa'iido weyn oo la gaaray ilaahay mahdi subhanahu wa ta'ala laakiin in loo gurmado oo wixii loo heli karo loo kaalmeeyo oo la garab istaaga waa shay laazim ah xaqna nagu awey walaalka muslimka inay nagu leeyahay laba arrimood baan rabaa markii aan ka digo mid waxa weeyaan qofka u gurmanahaya dad badan baa isxil qaamay idaacado badan telefisyoon badan ummado dhan hay'ado dhan arrintaas uu istaagay xoolahaas la aruurinahayo iyo waxa la bixinahayo in la xaqiijiyo agoontii inay gaarto sida wax loo aruuriyo looma geeyo qofku marka inuu ku didaalo waxa uu bixinahayo gacanta uu u dhiibahayo iyo cidda uu u dhiibahayo inuu asagu booqdo meesha laftigeeda tago asagu yadan biyadin ugu dhiibo iyo inuu cid uu ku kalsoon yahay u dhiibo waa in lagu dadaalaa oo waxaas waxa weeyaan aysan qaar meel dhaxa ku harin ama aynan sarrifmin ee sida ay tahay dadka dhibaatadu ay gaartay loo gaarsiiyo taasi waa mid qodobka labaad qadiyada iyada ah dad baa dana kale kaga faa'iideysanaya waa in laga digtoonaada dadka dhalinyarada ah oo laga yaabo sheekooyin inay dhex maraan oo waalidkood laga yaabo asbaabo jirin inay iskugu diidaan oo asbaabo sax noqon karaan inay qadiyadaas looga faa'iideysto in wax kasta la yiraahdo suuqa madow baa lagu dhameynaya in la yiraahdo oo hay'ado iyo inta la boombooniyo la yaa wixii la isku diidaaba ha yimaadeen waa la maal gelinayaa waa la isku aroosinayaa oo arrinkaasi uu abuuro fitno iyo dhibaato qoysaska hooyooyinka iyo aabbayaalka iyo ilmahooda dhexdooda ay ka timaado ilmo badan oo waalidkood ku caasiya oo waxa weeyaan sameeya afcaal aan fiicnayn in lagu dhiiri geliyo oo sidaas loo muujiyo ayadana waa in laga digtoonaada dad baa jecel dadka noocaas ah inay soo baxaan oo wax alla wixii israadsanayo dhanbaba dariiq aan sax ahayn wixooda intay ugu dhameeyaan masna laga yaabo inay yiraahdaan dibadahan u qaadayna oo ay gaalaysiiyaan dalka iyo diinta iyo dadkoodana ay ka gooyaan oo ay nacsiiyaan oo ay yiraahdaan dadkaas diin la wadaagaysaan diinta sheeganayaan maxay tahay dadka sidaa u dhaqmahaya ma kuwaas dal la wadaagaysaan oo sidaas looga faa'iideysto oo ay keento waxa weeyaan inta la xira taraariyo in dadkii la gaalaysiyo khatar la gaarsiiyo arrinta iyada ana waa in laga digtoonaada oo aad iyo aad la iska ilaaliya allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adil al shirka wal mushrikeen dammir a'da'aka a'da' ad-din ya qawi ya aziz ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين